Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulantisan mar kale daawadayaasha ku xiran Garadisa Tube kusoo dhawaada taariikh kooban oo aynu kaga hadli doono gudoomiyihii baarlamaan ee ugu horeeyay ama gudoomiyihii baarlamaankii daaqiliga mudane Sheekh Cali Jimcaale Baraale. Sheekh Cali Jimcaale Baraale wuxuu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka maamul hoosaadka Soomaaliya ninkii ugu horeeyay, wuxuuna noqday gudoomiyaha baarlamaanka sanadka markuu ahaa 1956. Sheekh Cali Jimcaale Baraale wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida aan ka helay dad ay qaraabo dhow yihiin, wuxuuna ku barbaaray isla magaalada Beledweyne. Allaha u naxariista sheekhu wuxuu dugsiga Qur'aanka ku bartay iyo culumta Islaamka isla Beledweyne, wuxuuna wax ka bartay culimada Soomaaliyeed dhanka masaajidda. Markii uu dhammaystay waxbarashadiisa wuxuu bilaabay ganacsi uu ku tagi jiray wadamada deriska ah, wuxuuna ka mid noqday ururkii dhalinyarada SYC ka mid noqday kadibna sii noqdayba guddigii fulinta. Allaha u naxariista sheekhu wuxuu taariikh weyn ku lahaa bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda, gaar ahaan dhalinyaradii SYL. waxyaalaha lagu xasuustana waxaa ka mid ahaa sheekh deeqsi ah, wadani ah, jacayl midnimada iyo diinta. Allaha u naxariista sheekhu wuxuu wax badan ka mid ahaa halgamayaashii gobonimo doonka ahaa una soo shaqeeyay xorriyadda maanta aynu ku naaloonayno ee noo horseeday magaca aan maanta ku leenahay dunida dhexdeeda. wuxuuna ka mid ahaa xubnihii doorashada ku guuleystay sanadkii 1956 doorashadii baarlamaanka, islamarkaana waxa ay baarlamaankii u doorteen inuu noqdo gudoomiyihii baarlamaanka ee ugu horeeyay baarlamaan Soomaaliya dhexdeeda laga soo doorto, laguna soo doortay axsaab, isagoona diyaariyay xeerar kala gedisan oo uu ka mid ahaa xeerka shaqaalaha, halka uu haddana noqday wasiirkii caafimaadka iyo shaqada arrimaha bulshada xukuumaddii daaqiliga ahaa ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Allaha u naxariistee Cabdulaahi Ciise Maxamuud. Allaha u naxariistee marxuumka waxaan ka cudur daaranayaa in aan helin taariikhda uu dhashay iyo midda uu dhintay toona oo saxan. Haddaba inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa taariikhda gudoomiyihii baarlamaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay yeelato. Tan iyo intaynu ku kulmi doono halgamayaashii Soomaaliyeed taariikhdooda mid ka mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaane Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.